فالأمن الدراء وكسوكر لي مقالة بوساسو قول كبري فالكاس وجيستين تنبيليال دعان كل ليال أرحم الله ويال مقع إسلام شيخا يا مقع دل يرى والشباب لبحي يا حالته waxay ku soo qaadeen check point ay joogeen ciidamo saacad dambe oo ciidamadu ay qabeen inay ka kala dhaqaaqaan meesha saddex nin oo ugu dambeysay ayaa nina ku dhintay labana ku dhaawacantay waxaanu ilaahay ugu weydiinaynaa naxariista janna inuu ka waraabiyo marxuumkii dhintay labada dhaawacna ilaahay inuu boogadhayo midda kale dadweynaha ku nool gobolka bari waxaanu u sheegaynaa oo marna aan ka codsanaynaa marna aan faraynaa in dadkaasi aysan ahayn dad ehel ah dadka ehelka ka dhiganayo soo dhaweynayo guryaha dejinayo la macaamilayo gacan saarka siinaya horta marka ugu horeysa waa isku kiis haddii ilaahay idmo aanu qabano waana naqaan dadka caa'ilada u ah iyo dadka soo dhaweynaya iyo dadka waxa kaloo jira si dadban dad ugu shaqeynaya amni darrada dadka magaalada dhexdeeda ka wada waxay u shaqeynayaan cadowga dalka dadweynaha marka waxaan ku codsanaynaa in ay gacan siiyaan ciidamada ammaanka inay la soo xiriiraan inay ammaankooda ka shaqeeyaan inay noloshooda ka shaqeeyaan inay waxbarashadooda ka shaqeeyaan inay ka shaqeeyaan ilmahooda mustaqbalkooda inay ka shaqeeyaan hantida badan iyo guryaha tirada badan oo ka dhisan magaalada Boosaaso nabad bay ku dhisan waxaanu kala faraynaa dadka ciidan u ekaha ah oo magaalada dhex yaacaya oo niman mas'uuliyiin sheeganaya ay wataan oo wadada ciidanka amniga ka sugayeen ay ka qaban waayeen oo qoryaha wata iyo shaatiyada iyo maryacadeyaasha iyo baabuurta wata annagu haddii aanu qabanno waxay noola mid yihiin kuwii aan raadinayno cadowga ahaa ciidankaasna waxaanu ka taxadiraynaa dadka mas'uuliyiinta ay wataay inay xeryahooda iyo guryahooda iyo cidooda ay ku adkaystaan oo ay gashadaan ciidanka ammaanku intay shaqadooda hayaan waxaa kaloo soo haray dadweynaha magaalada Boosaaso degan farbaa ku godan si dad badan bay ugu godantahay si dadban bay ugu shaqeynayaan cadowga waxaa kamida beelaha hadda ka abuuraya magaalada dhexdeeda fidmada waxay u shaqeynayaan cadowgii sababtoo waxa weeye hadda ka hor inta aysan bilaaban fidmada qabaa'iladu ma aanan haynin cadowgaas sababtoo waxa weeye kuma gabanayaan waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo in ay ka taxadiraan kuwa baadiyaha la ku dagaalamaya waa maca daalika oo ciidankii mashquulinaya oo ciidankii dawladda intii badnayd loo diraya ayagoo lagu kala dhex dhigaya